السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وذاغيال كسو دوادا جنال كينا كوريال فضلا نقصو بير هدادا كميد أهين أصحابتا انتا أنا قدقلين برنامج كينا وحن كويدينيا سؤاشا منولان كران قفكو ودنا لآن maxaa laga wadaa kelmadaha ah wadnahayga ayaa tahay fadlan jawaabtaada iyo fikirkaaga noogu soo qor commentiga hoose waxaan wada ognahay in wadnuhu yahay xubinta ugu muhiimsan jirka aadamaha iyo isaga oo ka qayb qaata shaqooyin fara badan dhiigana jirka u qaybiya dareenka qofka ay ka turjunto sida marka aad baqayso oo wadnahaagu aad u garaacmo marka aad wax jeelaato oo iyaguna dhahaan wadnahaygii ayaan kaaga tagay takhaatiirtuna waxay isku dayeen in badan inay xal u helaan dadka wadna xanuunka ku dhaco maadaama ay caqabad weyn ku tahay xubinta wadnuhu iyada oo halkii qofba leeyahay hal xubin aysan suurtagalna ahayn inaad qof kale hesho wadnihiisa sida ugu dhaqsaha badan waxaana idinkula wadaagi doonaa muuqaalkeena maantay qisada dad noolaaday wadna la'aan muddo aad u dheer waxaana ka mid ah raggaas Stan Larkin macquul maaha sida caadiga inuu qofku muddo dheer u adkaysto wadna la'aan balse waxa uu 25 jirkan Stan Larkin oo ahaa ciyaartoy kubadda kolayga noolaaday 555 beri muddo sanad ka badan wadna la'aan waxaana helay isaga iyo walaalkiis ka yar xaalad wadna yaraansho ah iyadoo ay macquul tahay in wadnuhu shaqadiisa istaajiyo si kadis ah waxayna takhaatiirtu ku sameeyeen Larkin qaliin wadnaha ah waxayna go'aansadeen inay wadnihiisa ugu bedelaan qalab shaqada wadnaha oo kala qabanaya oo dhabarka sare la saarto waxa uu culayskiisu dhan yahay 6 kilogram 6 kilogram ayuu wuxuu ku watay Stan Larkin muddo 555 beri ah dhabarkiisa subhanallah ilaahay uga mahadceli nimcadaad haysato waxa uu sii watay noloshiisa isagoo kubadda kolayga ciyaari jiray sidoo kalena waxa wadna lagu beeray 6 bishii May 2016 iyadoo ay takhaatiirtu markii hore u ballan qaadeen in muddo yar wadna loogu heli doono balse ay suurtoobi weyday waxaanan ka baran karnaa casharkan inaadan isdhiibin nolosha wax kastoo kugu dhaca qisada labaadna waxa weeyaan Randy Shepard waxa uu ku seegay caruurnimadiisii xanuun kaga yimaaday wadnaha takhaatiirtu waxay u waayeen wadna lagu bedelo markii uu 17 sano jirsaday ayaa waxa ku dhacay xaalad xanuun taas oo sababtay in qaliin wadnaha degdeg ah lagu sameeyo laakiinse waxay sababtay inay ka sii darto xaaladiisu sidoo kale waxay takhaatiirtu ku xireen Sankardia wadnaha la shaqaynaysa isma dhimin Randy Shepard oo waxa uu ka qayb galay orodka marathonka loo yaqaano 7 kilomitir waxa uu orday saacad iyo bar gudaheed maalintii waa uu shaqeeyaa habeenkii marka uu nasanayana waxa uu nasiyaa sidoo kale wadnihiisa Greg Lewis kontinishan jirkan ayaa sanadkii 2011 waxa uu ka xanuunsaday wadnaha waxaana la geeyay xarunta wadnaha ee Texas waxaana haysay xaalad caafimaad oo ah in unugyada wadnihiisu ay buux dhaafsheen borotiin taas oo sababtay in wadnuhu soo saaro wadna garaac fara badan khatarna gelisay kaliyihiisa haddii aysan takhaatiirtu ka soo gaarin waa u geeriyoon lahaa waxaana lagu sameeyay qaliin xagga wadnaha ah waxaana loo geliyay wadna gacan ku samays ah oo loo yaqaano Sankardia oo qabanaya shaqada wadnaha caadiga ah oo kale waxa uu eebe qadaray inuu soo naaxo isla maalintii qaliinka lagu sameeyay taas oo farxad iyo guulba u noqotay takhaatiirtii maadaama uu ahaa qaliinka ugu horeeyay ee noociisa ah oo abid la qabto guuleystana Zana Zimon Zana waxa ay la daalaadhacaysay xaalad wadna xanuun ah oo aad u daran taasoo sababtay in lagu talaalo wadno gacan ku samays ah laakiinse nasiib darro wadnihii gacan ku samayska ahaa ayaa qaadan waayay jirkeeda lana qabsan waayay waxayna takhaatiirtu go'aansadeen in wadnaheedii lagu xiro tuubooyin plastic ah oo shaqada la qabanaya inta laga helayo wadno kale oo lagu talaalo Jacob Halik dabdamiskii Rercheck waxa soo gaaray dhaawac xagga wadnaha ah waxaana laga yaabaa inuu dad badan badbaadiyay waa dadka loo yaqaano waa wadna weyn yihiin ama waa wadna ballaaran yihiin waxay takhaatiirtu ku xireen 2 tuubo oo dhiigga u kala qaybinaya jirka iyo sambabada qaliin qaatay 7 saacadood oo xiriir ah sidoo kale waxa uu ahaa qaliinka ugu horeeyay ee noociisa guuleysta maadaama uu midkii ugu horeeyay ku fashilmay gobolka Texas ee Mareykanka takhaatiirtuna dadaal badan ayay u muujiyeen si uu qalabkani ula qabsado jirkiisa una shaqeeyo aakhirkiina waa guuleystay waxaan soo garnay gabagabadii barnaamijkeena fadlan hamuugaan inaad ku soo biidho channelka sidoo kalena subscribe tiraahdo gambaleelkana furato mahadsanidin